waa tahay maalmahanba waxaad maqlayseen ninkan odaga ah waa garanaysaan waa Cabdisaaq Catoosh wariyihii hore u shaqeyn jiray BBC-da waayahan waxaad maqlayseen nin oday oo miskiin ah buwaadiyaal ku rooya meesha la yiraahdo jigjiga ku bago bugeeyo ku dilayo dhala madax kaga jeex oo taruma idin sheegayay Soomaalidu wax kuma maahda qofka ka baqayahay in la dhaxalka in laga qadiyo ninka ka baqaya dhaxalka in laga qadiyo geela ma la qaybsho ku waasha geela ma la qaybsho ma Soomaaliyeed alaaba haddaad aragtaan qof qabiilka uu ku dhashay isxijinaya qarra wad qabiil ku wardinaya oo hadii la ku rooyo meesha la istaagaba hadii la ku rooyo faray ku dirriisu qabiil yahay oo hadii reerkay u gara safka u garaanay daacataan weynaan bareerka lagu soo dar weynaan bareerka lagu soo dar Cabdisaaq Catoosh waa suju asaga iyo Aadan Barre Ducaale baa isku xisbiya Aadan Barre Ducaale waa garanaysaa ninkii lahaa Kenyaati dhalay baan ahayo Kenya u dirirayaayo Soomaaliya la dirirayaayo badda Kenya iskale ninkii lahaa yaa asagu waa isku adiyaal ku roo isku fakar weey waxyaalaha mucaaradnimada isku saaysan tahayna wax kala ma aha waa inuu Kenya suju yahay oo Kenyaati isu qabo weey Kenyaati isu qabo ninka wuxuu ku dilay ninka miskiinka dhul bahante wuxuu ku dilay wax kala ma aha inuu ka xigsanayo oo leeyahay hadii la ku roo yahay farmaajo ahaan buu dilay farmaajo ahaan sida afkiisa cadeynayaan farmaajo ahaan buu dilay ninka oo leeyahay farmaajo maxaa ku taageeraa reerkaaga muxuu farmaajo u taageeraa ninkaasi wariyo ahaa journaliste heer caalamiya laanta ugu afka dheer ee diiradda ku rooyay caalamka BBC u shaqeynayay waa qof nooca u hadlay waa marka idin leeyahay qofka ka baqayaahi ninka ka baqaya halka laga qadiyo geel ma la qaybsho ku waasha dhaqan xumadii looga soo dhiyeen waxyaalahaas ka mid ah qofkuna inta uu isqarin karo waa wax yar inta uu isqarin karo ninku waa wax yar fakarka uu ninka ku dilayna meel kale ha u dooni waa fakarka Aadan Barre Ducaale maxaa isku soo beegay markuu ninka dilay qaarta madax kala jeexayo iyo dacwad maalintii furnayd waxa isku beegay ma garanaysaa ilaa 15 bishii ahayd maalintuu ninka madaxa jabiyay waa ka Aadan Barre Ducaale oo ku garaacayo leh badda Soomaaliya Kenya leh ilma uhuri baana ku hayo kaas dhageyso Soomaalida ay raali ahaato ma ogolaanay hal cidi ama hal yar oo dhul ay leedahay wadanka Kenya ama bad ahaado ama dhulka ahaado inay wadan kale ama Soomaaliya ama Ethiopia ama Djibouti xuduud ama South Sudan inay qaadato sidaasna waa sidoo sameeyay lahaa ninka Mustafa ka madaxweynaha kalinka shanaad markuu mid soo fariisto wuxuu soo fariisanaa soo nin Soomaali ah laakiin Ethiopian u dhashay wadanka bal marakana kii hore dhageysatay marakana waxa dhageysataan odayaashii dhalada madaxa dhacay odayga dhalada madaxa dhacay ehelkiisi oo idaacad taagan oo hadlaya oo ka sheekeynaya qaabka wax u dhacay iyo cadaalad darrada ay tirsanayaan iyo sida aan suuq loogu oran ee loo ignore gareeyay waxa inta la dilay la ignore garanayo waa xildhibaan golo deegaana oo booq soo jeeda cadaalad darradu halkay marayso bala dhageyso aad iyo aad baan u cambaaraynayna waxaan codsanaynaa in la qabto ninka oo cadaaladda la hor keeno waxa si labeeya ninkaasi wuxuu ka tirsan yahay baarlamaanka dawlad deegaanka Soomaalida heer degmo waxaa laga soo doortay degmada Booq wali ma arag ama adeemaan arag nin isagu leh xasaanad oo hadii abayd maayo nin deegaankaasi oo nin sicibihi intuu gacanta la galay dilay haddana si xorriyada suuqa u jooga anagu waxa dadku aaminsan yahay oo hadaanu beesha dhul baahantanahay aaminsanahay jigjiga in maamul dawladeed oo uu ka jiro cadaaladii arinta waanu ku argagaxnay waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad baaq u dilaynaa in Cabdisaaq Catoosh oo BBC-da u shaqeyn jiray la qabto ninka uu dilayna waxa la yiraahdaa Caaqil Faarax Maxamuud Cali Maahir
oo laga soo doorto Booq degmada Booq oo loo geystay xildhibaan heer deegaan ah heer degma ah oo laga soo doorto degmada Booq oo ah haddana caaqil oo loogu gacan qaaday arrin fool xun oo qabyaalad ah oo caddaan ah oo uu geystay nin suxufi ahaan jiray oo BBC-da ku jiray oo la yiraahdo Cabdirasaaq Catoosh social media aad u isticmaala dhawaana social media dad gaf uga geystay maantana isagoo qabyaalad ku hadlaya oo xaajadaasi ay ka bilaabantay arrin qabyaaladeed ugu gacan qaaday caaqilka hotel la iskugu yimid oo ninkaas waa bedelay ninkaas sida odayaasha caddayn doonaa dhalo madaxa kaga jeexay waxaan la yaabay marka jigjiga DDS waxaa madaxweyne ka ah nin waayihii dambe la mahadinayay waa Mustafa Cumar waa nin la lahaa Soomaalinimada ku weyn waa nin la lahaa haddii aan la kula dimuqraadiyad buu keenay waa nin la lahaa 90% dadkii u soo dhaweeyay kala irdhoobay ninkaasi maxaa kalifay ninkii nooca ahaa ee Mustafa Aysaali igu sheegayay inuusan Cabdirasaaq Catoosh xabsiga liinta ku cabsiin inay isku hayb yihiin waaban ogaaye laakiin waxaan islahaa Mustafa Cumar cadaaladda haybta uga fiican Mustafa Cumar waa sida mararka uu markuu ka hadlayo meelaha maslaxyada uu ka sheego dadkii meesha joogay deegaanka joogayna ay ku amaanayeen markii rejiimkii hore ka kacay waxaan aaminsanaa Mustafa inuusan marnaba inuu cadaalad qof shakhsi oo dowlad deegaanka u dhashay uu helo inuusan ku bedelanayn haddii ala ku roon yahay hayb inuu isku bedelanayn laakiin laga yaabeeba maamulkiisu ama kuwa ka hooseeya ama saraakiisha booliska ahi inay ayagu wax xumeeyeen ama khaldeeno cadaalad darrada ayagu keeneeno uusan asagu ka warqabin laakiin waxaa isweydiin leh waxa intaa siitimay miidiyaha gaaray waa u aamusay anigu muddaan muud kaga jiray waxaa islaa warbalsug waa intaas oo la xalliyaaye ilaa 4 beri 3 beri baan muud kaga jiray marka waxaa caddaatay dee marka ma dhihi karo Mustafa maba ogo bala kalaa bahal keenaysa ma dhihi karo ee waxaan dhihi karaa eedda Mustafa qayb weyn buu ka yahay Cabdirasaaqna isku halayn inuu ninka ku garaacay laa shaka ninka uu dilay oo madaxa jeexay waa caaqil beeleed kow marka labaad waa xildhibaan golo deegaan doorashadiisu tahay degmada Booq waa nin ka tirsan maamulka ama xukuumadda degmada Booqna shacab dhanna matala bal isweydii qof shacab hadduu ahaan lahaa bal cadaalad buu heli leh kii waxaa waayey xukuumadda u shaqaynayay oo muxuu ku waayey wuxuu ku waayey inay Catoosh iyo Mustafa isku beel yihiin madaxweyne Mustafa waxaan leeyahay Soomaalida kuma maahda qaalin nin leh qooqsanayo waa qaabka u socdo ninka la yiraahdo Catoosh waa isku halayn bay dameeri hooyadeed dabada uga nuugtaa ilaa waa aragteeno dameeruhu waa biqla kulul yihiin gadaal bay ka nuugtaa isku halayn ay ka qabto hooyadeed bay gadaal ka nuugtaa madaxweyne Mustafa waxaan leeyahay dad badan oo malaayiin gaaraya baad madaxweyne u ta shakhsi sujuu ah oo Soomaalinimada qabiilka ka aaminsan oo haddii aan ku roon yahay naftiisi iyo shaqadiisiba garaafeeyay yuusan adiga taada garaafayn Cabdirasaaq Catoosh anigu cunsuri ku tilmaamayo cunsuri waxaa lagu tilmaamaa qof reer kaliya haddii aan ku reebahalkii aaday laakiin cunsuri ma waa Kenyaati waan ku tilmaamaya anigu nin Kenyaatiya oo nin Soomaaliya dilay nin Kenyaatiya
oo nin Soomaali Etoobiyaan ah oo degmada Etoobiya dhexdeeda ku dilay muwaadin Etoobiyaan u dilay markii sharciga loo fiirso ninka uu dilay waa muwaadin waa xildhibaan golo deegaan shacab matala ninka dilayna waa nin Kenyaatiya oo sharcigiisu maca Kenyaatiya fakarka uu ku dilayna ay tahay fakar Kenyaatiya uu ku dilay farmaajo maxaad ku taageedhaan adiga reerkaaga qofka noocaasa baa wuxuu sheeganayaa journalist sheeganaya qofka noocaasa baa wuxuu sheeganayaa suxufi heer caalami sheeganaya waa wax ceeb iyo laga yaxyaxo wey waa wax dhaqan xumo ah wey waa wax aan dadka bulshada Soomaaliyeed aan qalmin wey waxyaalaha waxa wey adduunka aad arkaysaan dadka indhaha u ah kiis kastoo dhacana loo dhiibo baara waa journalistiyaasha waa suxufiyiinta heerka caalamiga laakiin annaga kuweenu waa noocaa wey noocaasa miran wey waxa intaasoo sano BBC kaga hadlayo Soomaaliya kaga faalloonayay oo wariyaha kugu matalaya Soomaaliga ah waa Kenyaati aaminsan in badda Soomaaliya Kenya leedahay una doodaya ninka in adeerkiisa Soomaaligaana ku dilay ama ku dhalada la dhacay inuu hadii aan ku leeyahay farmaajo taageersan farmaajo madaxweyne dalka ma farmaajo muwaadin Soomaaliya ma miyuusan aragti xor dhiban karin Mustafa Umar baan weydiinayaa Mustafa how much ku taageersan maanta adiga inteesa ku mucaaradsan oo kula dhashay adiga mucaarad iyo muxaafid waa la kale laakiin ma jirtaa in lagu dilo dadka adiga mucaaradka ku ah ama muxaafad ku ah maxaa u taageeraan ama mucaaradan in lagu dilo ma jirto mar aanu maqal laakiin waxa ceeb ah deegaankaagana ceeb ku ah meesha madaxweynaha ku tahayna ceeb ku ah amnigeeda dhaawacaysa nasabada dhaawacaysa dadnimada dhaawacaysa dowlad ahaanta dhaawacaysa waxa weeye qof caan ah oo la garanayo oo suxufi sheeganayahay inuu magaalada bartakeeda inta xildhibaan golo deegaan dhala madax kala dhaco inaan deera u hardiin oo aan la soo qaban oo hayb qabiil ku xaragoonayo waa wax laga xumaado wey waa wax laga xumaado wey meelaha aan dowladda ka jirin ee nothingka kama dhici kara waxa dadku waa yaxyax odayaasha iyo waxgaradka baa yaxyaxa oo qabta laakiin meel dowladda ka jiro oo jigjiga ah oo caasimadii dowlad deegaanka ah in waxa noocaas ka dhacaan aragti ama picture fool xuma bixinaysa inay ahay in meel isku aamini karo ay ahayn bay muujinaysaa madaxweyne Mustafa Umar Baynaan ceeb kastoo dhacday dul istaagaysa waan ku qordaar lahaa hadii maalintii horeysa wuxuu ahaayay waan ku qordaar lahaa hadii maalintii labaad ahaan lahaay laakiin 3 days iyo 4 days inaan loo qaban dadkii cadaadayaan cadaalad raadsanayaan xildhibaano golo deegaan xukuumadda ka mid ah cadaalad bareeyaan ay ka bareeyaan wiil adiga hayb kula ah oo qabiil ahaan ay wadaagtaan oo isku halayn adiga ku qabo caasimadda isagoo jooga dadka dhala madax kala dhacay ham badan oo lagu qaba dhacay naftiga ku taageera sida la ka sheegay si rejiimka hore kama kala soo dhigo laakiin laftiga hadda waxa luus garanaysa taageero badan naftiga waxa luus garanaysa taageero badan Mustafa Umar baan la hadlay cadaaladu waa nolosha bini aadanka weey oxygen-ta cadaaladda ka muhiimsan oxygen-ta cadaaladda ka muhiimsan qofku inuu cadaalad helo umadu qaarkeed isku dilaan cadaalad haduu waayo wuu isdilaa oxygen-ta saas ka qaado cadaaladu dunidu number 1 weey waa wax kale lagu hormaro weey dunida aad arkaysaan ee hadii aan ku rooyahay dhaqaalaheedu hayga yahay ee European iyo American wax kale kuma hormarin cadaalad ku hormaray ilaahay markuu meesha cadaalad tahay gaal kasta ahaayeen fisqi sameeyeen cadaalad kaliya markii meesha ay ka dhigteen waddanka joogaan ilaahay raxmad iyo roob buusa ugu siday markaasay roobku soo kicin maxay ku matoosteen maxaa abaarta lagu riday waxa abaarta lagu riday waa cadaalad darro waxa ayaga roobka siiyay waa cadaalad ma ilaahay baa gaal ka jecel maya ilaahay wuxuu noo sheegay meesha bini aadanka dhiiggiisa lagu daadiyo inay adduunka ugu xun tahay maxay isweydii gaalada kuwa joogow afar ilaa sax roobka ku daaya ma roobka ayagu tuuba ay furtaan miya tuuba ayagu furtaan maya tuuba ayagu furtaan mar xiraan miya maya adigu maxaad ku weydo abaarta ku daba dhigay waxa ku daba dhigay waa cadaalad darro waa qabiil waa hooy yaba waa nijaaso waa umadoox waa hooy kacabaajin waa hooy yaba halkan cadaalad baa taala anigagaas qaxootiga baan maanta kan Jarmalka u dhashay ee hadii aan ku rooyahay halka
awoowi Germany yahay ee waddanka iskale baan maxkamad wada fuulayna si siman baa naloo dhegeysanaya ummadda dhan inta isugu yeero markaasaa kaayaga gar leh garta la siinaya markaasaana ka baqayn wax cadaalad darraa haddii awoowey ayeeyada qabiilkii wax tama soo gelaya meesha looyarka ii doodaya waa German kale looyarka ii doodaya waa mid kaloo cadaan ninka dacwadda ku rogaya waa adeerkii intaa in laagma samayn karo sharciyaa la dhigta cadaaladda saa loo shaqeeya waa waxyaalaha ay ku heleen barwaaqada waxyaalaha ay roob ku heleen waxyaalaha aad ku gubanaysaan abaarta idinku riday waa cadaalad darro Soomaaliya waa cadaalad darro sidaasaa ka dhaba madaxweynihii dhammaa ee dowlad deegaanka Soomaaliya Ethiopia ee intaas oo milyan xukumay xildhibaan golo deegaan oo asaga xukuumadda iska tirsan baa madaxa dheer laga dhacay oo in adeerkii kala dhacay waa in adeerkiisu maxaa baasboort Ethiopian aan lahayn waa in adeerkiisu aan la deegaan ahayn waa in adeerkiisu ogaadeen wadaagaan waa in adeerkiisu Kenya afhayeen oo ah oo Kenya ka yimid waa in adeerkiisu sujuuya waxa way Soomaalida lagu sheegay waa hadalka Aadan Barre ducaalo mira waxaan leeyahay Mustafa waxaan leeyahay madaxweyne cadaalad ka shaqeey ummadda hadda way ku jeceshahay laakiin yaysan gaarin cadaalad darradu hadday faafto waxay gaari doontaa heerkii ninkii aad meesha kala wareegtay waad garanaysaa heerku joogay lama mahadinayn habaarkaa u dheeraa meesha ku dambeeyeyna waa ogta meesha ku dambeeyeyna waad ogta waad ka sheekaysaa walaalka adiga kula dhashay baa cadaalad darro u dhintay Mustafow kii adiga hooyada iyo aabaha dhaleen baa cadaalad darro u dhintay oo jigjiga ugu dhex dhintay cadaalad darradu xanuunkay leedahay inaad taqaanaan filaya cadaalad darradu xanuunka ay leedahay inaad horay u dhadhamaysaan filaya haddaba wax adiga ku soo gubay ku soo xanuunjiyey xanuunkooda aad garanaysid qof bini aadan ha ku fiirsan markaad tahay qof miskiino iska kashbacayo cadaalad darra aan kala aqoono wiil reexa joogtaa ku dabaalaataawobi maba oga waqtiga dhacay marka aad tahay waa loo qaateen inaad tala dhaxdid laakiin adigoo walaalka foolxumadii lookeed lagu dilay cadaalad darro tii u xumayd arkay xanuunkeeda arkay in maanta qof shakhsi Soomaaliya oo kale in hortaada lagugu dulmiyo oo madaxtooyadaada lagu ag dulmiyo oo dhana madaxa kala dhaco oo aan deena waardiyin oo aad waxba ka qaban weyday oo aad ku fiirsatay soo ma noqonaysid waddadii walaalkaa maray soo adigu wax marin maysid waddadii walaalkaa la mariyey soo adna wax marin maysid madaxweyne waan kula talinayaa qof sumcadiisa soo cunay Soomaalinimadiisa cunay haddii alla ku rooyo daaquudnimo iyo daanyeernimo ka doortay haddii alla ku rooyahay shaqadiisa kaga soo ansuriyad iyo haddii alla ku rooyahay kenyaati adeeg looga soo cayshay yuusan adiga sumcadaada iyo qofnimadaada la degin dadnimadaada yuusan la degin kalsoonida lagugu qabana yuusan wiiqin kalsoonida lagugu qabo yuusan wiiqin nasabadaadana yuusan wax u dhigin adaa maanta madaxweynaha laga yaabee in badan oo wax khaldaysa inay kaa hooseyso in badan oo haddii alla ku rooyahay habaarqab oo dhan ay kaa hooseeyaan balse waan ku cudurdaari lahaa haddii bahashu tahay hal maalin keliya maalintii horreysay haddii aan taagnahay waxaan idhaha madaxweynaha inaysan weli gaarin baa laga yaaba laakiin kiliibyada iyo fariinta halkaa igu timid kiliibyada iyo fariimaha halkaan igu yimid maaha kuwa aan kugu cudurdaari karo oo aan dhihi karo Mustaf ninka la yidhaahdo Mustaf Cumar ma gaarin mar labaad iyo mar saddexaadba waan ku salaamayaa